asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlayo oo nasaan u dhaawacan waaya maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arankii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharma boy iyo deeq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saaca haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayna shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar busti aqoon ab u lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kula hadlo oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arinka sharma boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay waxa ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlayna nabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanayna anigu waxaa siri hadii aad gabatid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorida wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho Jam Street Alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraanti la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeyaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii ragtirimo ah waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuurka markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan iyo irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo cadaan model iyo inta ma jeerteenaba dhan waxaa balan waa inaa meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo laba jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaa tahay daba dhilif ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyey inta Axmed Rashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireenaa ninka la yiraahdo Cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa la irbaaxayay waa la feerayay kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Axmed Rashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raalli kama ihi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kama iyo wax lagu sameeyay waxaa weydiiyay haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanayo aad ii soo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u lahaa inaad ii imaadid oo aad ila hadlisid wuxuu yiri waa ka xumaay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaa jiri super power waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd dad qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif ma jarteen maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen Sharma Boy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka
waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la idhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaaye iyo dumarka dhaaye sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo karisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxaa ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan u leeyahay waxaan leeyahay ayagoon hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan aadna ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa inta waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannama salkeeda imari ilaahu cadaabo jahannama salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada u mahadsan tahay.